كعاويين قف ديارية واحد إلى forensic protocols forensic protocols وحويه وهبراعي لو استعمال لها بروتوكول لو مع laboratories يصيروا النقلها قلب هاي السجع هي وحكو فديا العجاري إلى 6 مليون وقلب هذا قالوا runtiina waxa aan muddo ku daba jiray sidii loo heli lahaa mar uu looga bixi lahaa shakiga looga saari lahaa kaysaska qaybtooda u baahan shakiga la saaro iyadoo ay caqabad lagu ahayd kaysaska qaybtooda in loo qaado dalka dibaddiisa oo lagu soo saaro taas marka waxay keeni doontaa hadda wixii ka dambeeya in shaybaanka la rakibay isaga in aan CID-du aysan u baahanin inay kaysaska qaybtooda intay qaado sanbaray ka samayso in loo diro meelo kaleeto ee lagu qaadi doono maaragtay waddanka dhexdiisa Soomaaliya guud ahaanna waa laab kaliya hadda oo laan doona ayuu noqon doonaa inta hadda meelo kale wax looga heli doono iyadoo waxeeda in markaa lagu wada shaqaysto oo hawshaas iyada la fuliyo ayaa hawshu tahay waxaan kaloo rajaynaynaa in baahiyo badan oo la qabay oo xiraalinta qabtay maxkamaduhu ay qabeen oo markay ka tanaqayaan waxyaabo badan ay xallin doonto oo u noqon doonto xal u noqon doonto iyadana waa rajaynaya haddii la helmo dad badan oo intay keesas galaan keesaskooda wax lagu caddeeyo la waayey iyadana waxaan filayaa inay keesaskooda caddayn doonto oo iyaguna aysan noqon doonin tuug damoo doonto uusan noqon doonin iyadana waa rajaynaynaa insha allah waxaa arrimahaas oo loo gol leeyahay tayaynta cadaaladda iyo amniga dalka haddaan dalkeenna aynu ka shaqayn in cadaaladdu ay noqoto waxa ugu shaqeeya waxay noqonaynaa dad maaragtay kala yacyacsan bay noqonaynaa marka sidaa la amnigeed si dowladdu ay u taabageliso tiirarkeedii shanta ah ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ayaa waxaa loo hirgelinayaa habraacyadan cadaaladda ee hadda socdaay loo samaynayo marka waxaan isleeyahay wuxuu maanta farxad inoo wada ah inaynu isla qaadaa dhigno brotokoolkii iyo habkuu noqon lahaa sidii loo isticmaali lahaa responsibility iyo mas'uuliyadaha kala duwan ee la yeelan lahaa hay'adaha kala duwan ee dowladda ay yeelan lahaayeen halkan inta hay-adooda ee dowladda fadhiya ee qalaan ka dhan waa dhammaantood waxay u yihiin bahwadaad u yihiin barnaamijka isaga waxaana la rabaa inay xoojiyaan dhinac wuxuu ka noqonayaa waxbarasho dhinac wuxuu ka noqonayaa caafimaad dhinac wuxuu ka noqonayaa amni dhinac wuxuu ka noqonayaa cadaalad dhinac wuxuu ka noqonayaa adeeg iyo bulsho iyo arrimo waxaa lagu dareemaya haweenka dhinac wuxuu ka noqonayaa ilaalin dhinac wuxuu ka noqonayaa kiis la waadixinayo oo la samaynayo dhinac wuxuu ka noqonayaa cadaaladii la marayo dhinacyo walba wuxuu noqonayaa faa'iido weyn buu noqonayaa oo dad u soo hoyatay waxaan rabnaa marka inaynu ku fara adeegno oo aynu arrintaas ka dhabayno sidii aynu ballan qaadnay qorshayaasheena dowladdana ku jirtay in la fuliyo sanadkan isaga ah sharcigaas kana wuxuu ka mid yahay maantay waxyaabihii sharciga fududaynayay inuu fulo mar haddii la helo qalabka isaga ah uu noqonayo sharciga inuu fududaado sahlan ay maxkamadaha u noqon doonto iyo xildhaaninta inay kaysaskooda helaan qolada dalbaaristuna markaba ay soo saarayaan baan rajeynaya waxaa kaloo la socda tababar oo loo samayn doono CID-da haddana waxaa jira qoryo caafimaadka ah tababar loo sameeyey iyagana waxaan rajaynaynaa inay wada shaqayn dhow la yeelan doonaan qoryaha CID-da maadaama barnaamijkan uu khuseeyo qolada CID-da ee dalbaarista waxaan rajaynayaa wasaaradaha kala duwan ee halkaan fadhiyaay inay gacan ka sii geyn doonaan barnaamijka isaga waxaa buldhigo u ah amniga buldhigo u ah CID-da buldhigo u ah iyaga ayaa laga rabaa habraaca kan inay u noqdaan buldhigna u noqdaan leanna maxaa yeelay waxaa la baarayaa waa keysku wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan oo kala duwan ammaan buu u baahan yahay ilaalin buu u baahan yahay khaliifadu inoo sheegayay waxa ugu weyn qofka bini aadanka laga rabaayo inuu qofka bini aadanka ammaano u noqdo sir hayo xil waalki oo hayo waxaasoo dhan buu keyskan u baahan marka buldhigo waxaa u ah qoryahaasa u ah marka maanta guusha kuwaad waxaa gacanta kusoo dhigaya waa iyaga ayaana waxay noqon doonaan qolada hawshata gacanta ku haysa ee maamusha noqon doona haddii ilaahay waxaan rabnaa marka maadaama barnaamijkan uu sidaa yahay waxaan rabnaa annaga intayada kaleeto waxaan u nahay kaabayaal baan u nahay oo kaabaya barnaamijkan isaga annaga ka cadaalad ahaan waxaa qorshahayagu yahay inaanu soo dhammaystirno wax allaala wixii baahi ahaa ee looga baahnaa inuu sharciga fulo inaanu miiska soo saarno kadibna markaa aan ku wareejino hay-adihii markaa sharciga fulinayay annagu markaanu shaybaadka keenno hab raaci la sameeyo maxkamadihii sharcigii tababarkii la sameeyo xildhaanintii tababarkii loo sameeyo systemkii wixii lagu dhaqaajiyo ilaa iyo garyaqaanada iyo looyarada loo sameeyo
أنت أمرك لو دمشترو شرعي فلوتي سوا بلا مسا هذا كذا من يروح كي يروح نقول دونا إن أنا كل على إنه وهبكي يوسع الله شغلاني يسكو حكي كذي أنا كشغال يقول نيجي كذا أيام كرينا هي لها كان الدولة ده وعلى رأينا كعم ويكبحيان سيد ورشة قين لها هاي برنامج كذا سجع وفائدة وإنه إن أنا كشغال waxaan mar labaad mar saddexaad u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta kala duwan ee dowladda halkan fadhida waxaan leeyahay waa guul labaad oo u soo hoytay Puntland laana maxaa yeelay sharcigu wuxuu ahaa guul maxaa yeelay waa markii ugu horreysay Soomaaliya laga sameeyay sharciga noocan oo kale ah mar labaadna waxay noo soo hoytay guul labaad oo ah waxa la keenay baadkii ugu weynaa ee Soomaaliya ee maanta qaadi doona kiisaska kala duwan wixii lagu baari lahaa kaasoo noqon doona baadkii ugu weyn ee hadda yaalla Soomaaliya isagana la isticmaali doona haddii ilaahay marka guushaas labada guul ee soo hoyday waxaan rabnaa inaan raacno guush saddexaad oo ah inaynu sharciga sidoo ahaa aynu fulino dambiilaha dambigiisa la saaro qofkaan dambiga lahayn dambigiisa u soo qaadan ka bacdina uu mutawaajibaadka iyo ciqaabaadka loogu talagalay sharciga uu talagalay si aynu u yarayno in lagu xadgudbo qof bini aadana sharaftiisa karaamadiisa noloshiisa ahaanshiisa jiritaankiisa lagu xadgudbo ma ogolaanayno dowladuna ma ogolaanayso taasaana looga dhigay saldhig looga dhigay qudub looga dhigay inuu sharciga ku fulaadi lahayd mar labaad iyo saddexaad waa idin mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa sharcigan iyo barnaamijkan wadatashigan bartoolka aynu ku samaynayno oo habraac aynu ku soo saarayno waxaan rajaynayaa in aynu ka qaadano contribution badan waxaa dadkaan aqoon-yahana ah oo wasaarado kala duwan ka socda oo hay-ado dowlad kala duwan ka socda la sugu yaar waxa weeye inaynu contribution badan ka bixinno oo aynu wax ku darro badan waxaas waxay noqon doonaan faa'iido noqon doonaan in aynu hadhow markaa sharci wixii qaabka loo isticmaalayay inuu fuliyo dadka khubarada ah ee la keenay ee dowladaha barnaamijkan fuliyay laga keenay waliba oo loogu talagalay inay khibradooda la wadaagaan waxaan rabnaa inaynu content siina ama wadankeena dhaqankiisa iyo jiritaankiisa inaynu la sheer gareyno inaguna aynu ku daro oo aan dhahno dadkeena saan iyo saan iyo saan ku saxiin taas anaga naqbalaysa taa bartoolkaas anaga raaci karnaa shariicada islaamku taas ay qabtaa waxaan rabnaa wax dhaqankeena iyo diinteena ku fadhiyay inuu soo baxo subxaan oo doonina hadii la taasaan waxay noqon doontaa dadka abdo noqon doonta laana maxaa yeelay dastuurkeena ku taala isagaynu aaminsanahay isagaynu qaadanay isagaynu rabnaa inaynu maartay ku socono hadii la